arrintaas jawaabna laga bixin doono. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa baaritaano kadib waxa ay soo bandhigaysaa baaritaanadaasi in natiijooyinkii ka soo baxay ama ay kusoo dhamaadeen. waxaana la jooga stuudiyaha dhexe ee telefishinka qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yarisow. wasiir kusoo dhawow bal arrintii maanta dhacday iyo dowladda. bismillahi raxmaan raxiim. faysal aad iyo aad umahadsan tahay. maanta ay taariikhdu tahay 30 bisha December 2017 waxaa dhacday in ciidamo ay galeen guriga senator cabdi qaybdiid. falkaas isaga dowladdu aad iyo aad bay uga xun tahay. falka dhacayna waxaa ka socda baaritaan. saa la socotaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gurigii tegay markii dhacdada dhacday si uu indhihiisa ugu soo arko. waatii warbaahinta uu la hadlay una xaqiijiyey in arrintaas baaris dhab laga samayn doono. intaas kadib waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in dowladdu ay aad uga xun tahay falkan isaga dhacay, loogana hari doonin cid alaale ciddii ka dambeysay. ujeedada iyo sababta loo sameeyeyna muxuu hala dabageli doono. ilaa iyo hadda waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto dadkii ciidamadii falkaas geystay oo tiradoodu isugu jirto 41 oo xabsiga ku jira, baaristoodana ay socoto. marka arrintan waa arrin ugub ku ah dalka Soomaaliya. dhacdooyinka noocan oo kalena oo qalqalka keeni karan wax loo dul qaadan karo maaha. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha xoogga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo dhammaan golahana waxay ka midaysan yihiin in falka noocan oo kale ah baarista dhabta la samayn doono, shacabkan lala soo wadaagi doono. aad iyo aad umahadsantiin.